roobab saacadii ugu dambeeyay ka da'ayay magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye sidoo warbixin warkaasi ku saabsan noogu soo diray wariyaha Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye oo alaabo nooga soo warrama magaalada Muqdisho. roobabka mihiganka ahaa ee saacadihii in la soo dhaafay ka da'ayay Muqdisho iyo deegaanada ku teedsan ayaa saameyn weyn waxa ay ku yeesheen isu socodka dadka iyo gaadiidka isticmaala wadada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. bartamaha deegaanka ceelasha biyaha waxa dhex eega biyo fara badan qaybo ka mid ah wadadaasina waxa jaray daalad waaweyn oo ku soo rogmaday bartamaha wadadaasi sida uu sharaxayo taliyaha deegaanka ceelasha biyaha. walaal waxa weeye horta dhibaatadana ummadii waxa weeye hadda cid noo soo gurmatay hadda wax nala qabanaysana male dadkiina biyahaas gooyay shaqadii u diiday waa magaalada fiyaalaheedii waaye baabuurta waa u jeeda hadda baabuurta dhex taal marka adeer arrintaas jirta madaxa arrimaha bulshada iyo dibudhiska wadooyinka ee maamulka deegaanka la foole koonfur galbeed Soomaaliya Mukhtaar Nuur Geesi ayaa qayladaan ka muujiyay burburka lixaadka leh ee ka jira wadadaasi isagoo ka dalbaday madaxda koonfur galbeed iyo kuwa dawladda dhexe in ay u istaagaan dayactirka wadadaasi. hadda indhihiinaadin macalina ilaa waxa la yiri aragti ka dhan waxa waaye baabuurta waa u jeedin wadada isku xiraysay waaye Muqdisho iyo Afgooye faras magaalaheeda waa isgooska ceelasha biyaha la yiraahdaa sida baabuurta ku mareysay waa u jeedin baabuuraha dhaxyaala gaarigan hadda agteeda maray TM way gaariga ugu xoog badana maro baabuuran forward driver aan baabuur kale ma mari karo hadii ilaahay raali ka noqdo marka maanta waxaan Soomaalida ka codsanayaa gurmad in lala soo gaaro culamaa diinka dawladda dhexe ganacsi Soomaaliyeed hadii gargaar bini'aadanimo oo degdeg aan lala soo gaarin dadkan dhibaata meeshan ku habsatay hadda Soomaaliyeed hal isu gurmado waa tascaawo jirteen annaga hadda waa daqane markii beledweyne waba ku fatay waa daqane markii joor ku fatay waa daqana annaga ceelasha biyaha markaan nahay musiibadan oo ilaahay mahadiis oo roobka ah nagu habsaday hadda fatahaad wali ma aha laakiin ilaahay alxamdulillah rabbil caalamiin saamicnadaan noo keenan ku shukrinayna hanaga soo gaaro baabuurta waa u jeedinay ku maray ayagoo hor wadana mari kara hadhow annaga maamul ahaan inaan ganacsadaan wax ka aruurano aan jidkaan horta labada dhinac ka xirno arrakaawo lagu shubo jidkaan lala simo waa wadooyinka nimana hadda soo xiray biyaha laftigooda nimada aan qasabno biyo aan furno aan tubooyin gelino haddana bariis haddana inaan booyada ku meerna laga maarmin hadii gal biyahan ma baxayn hadduu caaw roob ku soo celin eber oo u dhamaatay wadada. Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye Kalsan TV Muqdisho.